بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أرض فصل كسيداتك كسو دوادا مادة علومك الوحدة الثانية عتبك لباد أي نسوق قارني قارهان 10 كيسكوان عتبك لباد 10 كيسكوان وحكو سابسن ياهي وحكو سابسن ياهي المجهر إيو الخلية وينسدي إيو أنوغي أيو كو سابسن ياهي أهدافتا أرضي ولا غاربو marka 10 ka si fiican u dhageysatid oo si fiican u fahanteed ina taariifisid mijhar waa maxay ina muujisid khaliya nabatiya iyo khaliya xayawaaniya saddex ina sheegtid oo kala saartid maxay iska mid ka yihiin khaliya nabatiya iyo maxay ku kala duwan yihiin farqigu waa waxa lagu kala duwan yahay tashaabuna waa waxa la isaga egyahay oo hadaba si xasuuso markeenu tagi doono khaliya nabatiya iyo xayawaaniya waxyaalo la isaga egay baa jira iyo waxyaalo lagu kala duwan yahay afar waa inuu ardayga sheegi karo khaliya nabatiya maxay ka kooban tahay ama qaab dhismeedkeedu muxuu yahay xayawaaniga muxuu yahay mijharka ayaynu ku bilaabeynaa أجهزة تستخدم في تكبير صور الأشياء وقلب لو استعماله إنوين السيسو وحيالها يرير آن لأركين إنوين السيسو صور كاسي حاجة وحنا تصيا مجهر كي حاجة وحنا تصيا إشجع أول استعماله أو قفك مجهر كمان كالاستعماله سيدا أيا الله استعماله waxa inoo ku xigta noocyadu u kala baxayo waa maxay saddex nooc ayuu kala baxaya tashriixi murakkab iyo elektrooni waa kala awood badan yihiin tashriixigu waa kan ugu itaalka yar murakkabkuna konton ilaa 60 ayuu noqonayaa elektroonigana ilaa 500 oo kun oo jeer ayuu wax weynaysiinaya waa nooca ugu tayada sareeya sheega yar oo la keeno quraanjada si lugaheeda loo diraasayo maasan hadaan soo u eegno arkimeeno laakiin mijharka elektrooniga ah markii la saaro 500 oo jeer ayuu quraanjadii weynaysiinaya oo wuxuu ka dhigayaa mid inta la eg ayuu ka dhigayaa sawirkaas wuxuu tusayaa mijharkii iyo waxyaalaha oo kala baxayo dhinaca hadaan ka bilaawno cadasa ayniya waa bikaacadi isha la saarayay hadii ay xasuusanaysay sawirkii qofkii wax eegayay meeshuu isha saarayay cadasa ayniya ayaa loo yaqaanaa waxa ka hooseeya daabidu al-kabiir waa maamulihii oo hadba soo dhaweynayay oo bahalka baamulayay daabidu as-sagiir waa kii ka sii hooseeyay oo yaraa qaacido waa salka uu mijharku ku fadhiyo weeye dhinacan hadaynu soo eegno cadasa shay waa maxay shayga la baarayo cadashada dul saaran ayaa loo yaqaanaa cadasha shay'iya waxa ku xiga almandada waa meeshii wax la saarayay si loo baaro waxa ugu sii dambaysa masdar daw kii ilayska soo iftiinka soo saarayay weeye inta qaybood ayuu u kala baxayaa mijharku khaliya waxa lagu taariifiyay wahdatu tarkiib al-kaa'in al-hayy noolo walba wuxuu ka soo bilaabnay unugyo khalaaya ayaa isu tagaya waxay soo saarayaan nasiijada inta isu eg baa isu tagaysa waxay soo saaraysaa عضوي أعضاء أنت سوء بايسو تجيسا جهاز أي صو صارسا أجهزة أي سو تجيا شركي نولها أي صوب حيا قاب كيلو دراسين يا قاب نسمتك نولها لبا أي لوك لا صاري أو واحد يري waxyaalaha la arki karo sida xubnaha waxa lagu daraaseynaya isha xagga hoosana lambar 2 waxyaalaha daqiiqa aan la arki karin waxa lagu daraaseynaya wasaa'ilu takbiir waxyaalaha wax weynaysiiya ayaa lagu daraaseynaya waxayna ku xigtaa khaliya goorma la iktishaafay iyo aragtida khaliya maxay tahay khaliya waxa la iktishaafay 300 oo sano ka hor ayaa la iktishaafay waxaana iktishaafay caalim u dhashay wadanka Ingiriiska oo la yiraahdo Robert Hooke la yiraahdo ayaa iktishaafay aragtidu khaliya maxay leedahay koo waxay ku leedahay khaliyo waa wahdatu tarkiib taariifka ay dhinac ka soo galaysaa laakiin waxa soo raacaya iyo shaqadii ayaa soo raacaysa lambar 2 khaliya waxay ka timi khalaayo ka horeeyay ayaa ka timi bimaana waa maxay unugyadu waa talfayaan unugyo kale ayaa booskooda soo galaya
khaliya qaab dhismeedka khaliya muxuu yahay maxay tahay waxa la yiri khalaaya noolayaasha unugyada noolayaasha dhammaantood waxay isaga egyihiin inay saddex qaybood ka kooban yihiin noolo walba unugiisa hadaa soo qaadid saddex ayay qaybood ayay ka kooban yihiin kow alqishaa alkhalawi ama loo yaqaano qishaa sitobalaazmi xuubka unuga sitobalaazimka iyo nawaada bu'da saddexda qaybood ayay khaliya ka kooban tahay halka waxaynu ku xigayaa faraqa u dhaxeeya خلية نباتية خلية حيوانية ومحي هلكا وحينو كيالا خلية نباتية هلكا خلية حيوانية امتحانك كان اسكولك كان سداداتك هو دونا هالنقضو هديلو يرادو كيبا نباتية إيا كيبا حيوانية أدقو أن وحبا آخرين هورتا تنشيدا كوبادو كلا جرانتو كلا وحيوانية تاسدا مربعو كلا أنا وحوية نباتية وحيالها كوكلا قرنيسد ويه وحكولا كوكلا قرنيسها برتا مدو هدا اكتد نوادي ايا لو يقانا حيوانيقنا برتامها مركزية برتامها ايا دعضا نباتينا كونها ايا دعضا هدابا خلية حيوانية اي خلية نباتية واحد لحدا كتشيرا وحيالها اي اسكو متك كيهين oo xayawaaniyana laga helaya nabaatiyana laga helaya saddexda xagga ku yaalo oo la riixay waa nabaadka ay gaar u tahay maxaa ka dhaxeeya qishaa akhlaiya sitobalaazim nawa saddexdaasi waxa isla wadaaga xayawaaniga iyo nabaatiga maxay gaar u leedahay khaliya nabatiya balaastijaad alkhadra nabatiya le oo xayawaaniya laga heli maayo fajwa usaariya waxa iskala nabatiya xayawaaniya laga heli maayo jidaarkii khaliyada نباتية أيها لجهل يا حيوانية لجهل مايو هالكاس وحنا تصيا صدق هذا اللي سجى هاي يصدق هذا اللي وكل الدنيا هاي صدق هذا اللي سجى جاي محل جوضة نباتية والله ذا حيوانية والله ذا وقشاقي وهلامكي ونوادي صدق هذا نوع كتصيسها وحل وكل الدنيا هاي بمعنى نباتية أيها سكالة حيوانية ملها وجداركي وفجواتكي وبلاستيداتكي جدول كنا وحنا تصيا لحدا شيء أيها اللي يسبر بردقيا صدقنا مذوبة كدقي صدقنا عصان صدقنا مذودة وصدقنا اللي سلوا داقو صدقنا عصان كنا وصدقنا جار كواه خلية نباتية غشاء الخلوي من كل جرادو يوجد محل قبضة نباتية ولا جهل يا حيوانية ولا جهل يا هلامك واللمد نوادنا واللمد سوقر غيبت عصانك جدار الخلوي يوجد نباتية يا لجهل لكن حيوانية لجهل مايو فجواتكنا واللمد نوادنا واللمد خلايا الإنسان وتنوعها ونقيادة شركة بين آدمك يكلا دونا شهودة شركة بين آدمك ونقيادة فربضان أيوليه لكن لما مركي لسكو دارو وحيساقيهين في التركيب في الشكل حق قابك وكوكل دويهين لكن حق قاب نسمتك ويساقيهين ومد والبا صدح دقيبود أي كوبنانيسا خلية محوها دم البيضاء خلايا محوها عصبية خلية عظمية هوستا waxaynu ku yaala khaliya casabiya oo sawirkiisa waxa ku muuqanaya dharka intuu la egyahay oo binaha dii lagu weydiiyo unugyada jirka unugyada ugu dheer waa inaad tiraahdaa khaliya casabiya ayaa ugu dheer waxaynu soo gaarnay su'aalihii iyo gabagabadii waxa ii tacriifisaa ardayow mijhar waxa sheegtaa kala duwanaanshaha ay ku kala duwan yihiin iyo waxa isku mid ka yihiin khaliya nabatiya iyo xayawaaniya waxa tiraahdaa waxaana isku mid baa laga yahay waxaana waa loo kala duwan yahay saddex sawirka aan ku siiyay inta si fiican u eegtid waxa ii sheegtaa nabatiya iyo xayawaaniya miya hoosta ayaa ku qoraysaa adigoo eegaya waxa ku kala garanaysid hoosta ay ugu qor nabatiya mise xayawaaniya gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaan idin leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuh